بسم الله الرحمن الرحيم. dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirweynahan martida sharafta leh dhaqaatiirta dhammaan say u dhameystiran yihiin gaar ahaan dhaqaatiirta lafaha dhaqaatiirta nooga timi gobolada wadanka iyo dhaqaatiirta nagala soo qaybgalaysa oo uga qaybgali doonta si virtual ah iyagoo adduunka daafiisa jooga dhammaan dhaqaatiirta soo diyaariyay cilmi sharafeedka ee halka nooga soo jeedin doona waxaan leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ilaahay baa iska mahad leh oo noo suuro galiyay inuu noo qabsoomo shirweynahan oo ah shirweynihii labaad ee ururka dhaqaatiirta lafaha Soomaaliyeed. waxaan aad ugu faraxsanahay inuu ilaahay noo suuro galiyay inaan shirkan muddo ka soo shaqeyno. waxa kale oo aan u mahad celinayaa gudidii ka soo shaqeysay inuu qabsoomo shirkan oo ay ugu horeeyaan gudida fulinta ururka dhaqaatiirta lafaha Soomaaliyeed. waxa kale oo aan u mahad celinayaa dhammaan taabagaliyaasha shirkan ku bixiyay dhaqaalaha shirkadaha kala duwan. waxa kale oo aan u mahad celinayaa madaxda nagala soo qayb gashay ururada caafimaadka wadanka iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha kale. waxaan leeyahay ku soo dhawaada shirweynaha labaad ee ururka dhaqaatiirta lafaha Soomaaliyeed oo sanadkan hal ku dhigiisu yahay kor u qaadida daryeelka caafimaadka lafaha wadanka. insha Allah ta'ala inta uu socdo shirkan waxa ay isweydaarsan doonaa aqoon badan oo ku saabsan waxyaabaha ay qabteen dhaqaatiirta lafuhu oo ay markaas si cilmiyeysan ay u daabaceen. shirkani kaliya ma aha mid cilmi isweydaarsi iyo kala qaadasho ah balse wuxuu yahay shir isbarasho isxog waraysi iyo in la wadaago fikradaha sidii hore loogu sii wadi lahaa daryeelka caafimaadka lafaha ee wadanka. idinkoo maskaxda ku haya waxyaabahaas oo dhan waxaan idin leeyahay shirweynaha labaad ee ururka dhaqaatiirta lafaha Soomaaliyeed uu noo furan yahay. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.